sheekhay ayaan ku bilaabayaa bal waxaad naga warbixisaa xildhibaanada iyo hawlihii ugu dambeeyay waxyaabihii shaqooyinka ay qabteen. waatay ugu horreyntii waa mahadsantahay sida aad maanta noogu casuumteen stuudiyaha CNA. haddii aan ka sheekeeyo baarlamaanka hoose ee Wajeer, sida aad ogtahay waxaan ku maqneynay fasax ayaan ku maqneynay bishii December iyo January ilaa February dhexdeeda waxaan ku maqneynay fasax ayaan ku maqneynay. fasaxaasaytana waxaa waaye waxaan aan qaadanaa hadba markii ay sanadka u dhamaanayo waana kii labaad. waxaa intaasi kadib aan joognay bisha March iyo April oo hadda aan ku jirno. waxyaabo fara badan nooma qabsoomin maadaama aan fasax ku maqneynay, laakiin inta taabashada leh oo aan dhihi karno waan qabanay waxaa ka mid ah in aan meel marinay guddiga municipality-da ee county-ga Wajeer. waxaa dowladda ay magacawday kadibna shaqagelin ay siisay guddi u xil saarnaan doona magaalada gudaheeda, taas oo shaqadooda ay noqon doonto magaalada nadaafadeeda. askarta la yiraahdaa kanjooda oo iyagana shaqadooda ay tahay in ay nidaam ay keenaan gudaha magaalada. sharciyada baarlamaanka uu keeno oo la yiraahdo bylaws-kan in ay meel mariyaan. waxa kaloo aan sugi haynaa in ay shaqo galaan guddiga iyagana u xil saaran hay'adda dawliga ah ee county-ga ee la yiraahdo Wajiwasco. ugu dambeyntiina maalintii waqti aan ka joogno hadda hal usbuuc iyo nus waxaan marinay budget-ka la yiraahdo supplementary-ga. waa tahay maxamed aad u mahadsan tahay. Shucayb, sidoo kale bal maxaad ku dar lahayd hawlihii ugu dambeeyay idin qabsoomay iyo weliba deegaankaada muddo ayaa ka soo wareegtay intii la doortay. waa mahadsan tahay Xasan. runtii Wajeer saan dhihi karno sanad iyo bar waxaan ku mashquulsanay arrimihii maxkamadda naga soo dhamaatay February dhamaatay, kadibna baarlamaanka uu shaqo galay. sida walaalkii u sheegay sheekhay, sharciyada baarlamaanka aan marin waxaa ka mid ahaa supplementary budget-kii. waxaan kaloo marnay municipality board-keeda. waxaan kaloo marnay aad muhiim u ahayd 2 sano soo dhaafnay hadda aan ku jirno aad loogu baahnaa ay ka mid tahay bursary fund-ki. bursary 2 sano dhaqaalihii loogu talagalay iska yiile lama bixin karin, taasoo caqabad ka jirtay xagga sharciga. control of budget-ka ay soo codsatay in maanta sharciga wax ka bedelno. tii ayada ahayd ayadana waan bilmarinay, public participation aan sameynay. dhammaan shacabkii oo aad ugu baahan waxbarashada in wax laga qabto ayaan maartaa sharcigaasan marinay. governor-gana wuu ansixiyay sharciga isaga ahaa. waa tahay sida la ogsoon yahay muddo dheer ayay soo jiitamaysay maxkamaddii, inkastoo markii ugu dambeysay ay soo gabagabowday. waxaa la sheegaa deegaanka xagga horumarka inuu aad uga liitay marka la barbar dhigo countiyada kale. haatanna waxaa jirtaa abaar. ma isleedahay wuxuu u baahan yahay in lacago badan oo ka xirnaa loo soo daayo, maadaama sida la ogsoon yahay sanadkii hore oo kale ilaa 2 bilyan oo ahayd budgetkii 2017-2018 aan la isticmaalin. ansixintii budgetkana markii horeba khilaafyo badan oo ka dhexeeyay hadda xubnaha laga soo doorto deegaanka dartood uu dib dhacay waxyaabo tiro badan. ma isleedahay haatan waa laga gudbay caqabadaasi oo lacago badan in la soo daayo wax badan isfurfuran? runtii waa jirtaa dhaqaalihii loogu tagalay 2017-2018 budgetkii lacag dhan ilaa 2 bilyan iyo 700 milyan ayaa tile oo ku xirneed CRF account, county revenue fund account. lacag ay ahayd waan ka fariisanay, hadda waa la soo daayay. inkastoo dhammaan aan la soo daayin laakiin 3 qayb u hore hadda waan helnay, taasoo maartaa ay keentay in maartaa magaalada dhaqaaqeeda dib u soo noqdo. dadkii deegaanka maqnaayeen oo contracts-ka ahayn ayagana ay lacagooda xogaa heleen. wax kaloo badan ay dhiman tahay. budget-ka hadda aan ku jirno 2018-2019 supplementary hadda aan marinay shaqooyin badan ayaa taala oo maartaa in la dhaqangeliyo oo la shaqeeyo u baahan. midda kale xagga awaaraha sanadkan waan arkaynay in maartaa ay dhibaato badan xagga ay naga hayso. maanta lafteeda shir oo aad maartaa weyn oo governor hogaaminayo oo cabinet-kiisa ayaa dhacaya oo arrimaha awaaraha loo arinsanayo.
markan anaga haddaan nahay baarlamaankana sharci oo maaragtay emergency fund oo lacag loogu talagalay abaaraha maaragtay in wax loo qabto ayaa baarlamaanka markuu kusoo aadan in la keeno lacagahaas haddii la helo xagga biyaha xagga cooska xagga weli taata raashinka dad badan ayaa maaragtay macluumaadkaas u baahan taasna in maaragtay waxaan ka qabanaa ayaan rabnaa duleera insha allah waa tahay maxamed aan usoo laabto deegaankaada oo kale wuxuu ka mid ahaa sanadkii hore meelihii uu ka dilaacay cudurkii halista ahaa haddaan qaldanayn Rift Valley meelihii lagu sheegay dad badan ayaa xoolihii ka waxyeeleeyay ama waayada xitaa billadil wajeer aan hilibka laga isticmaalaynin bal haatan maxaa u dambeeyay deegaanka dhinaca horumarkiisa iyo cudurradii dowladda oo kale war rasmi ah u dambaystii maynan kasoo saarin waxay sheegtay inay la dagaashay balse in la dabar gooyey weli maysan sheegin waa tahay waayeel aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay goobaha cudurka uu ka dilaacay Rift Valley fever-ga waxay ugu badneed deegaanka la yiraahdo Eldas iyo qayb ka mid ah Wajir South dhanka Tarbaja iyo Wajir East inta u badan cudurkaas ay saameyn weyn kuma yeelanin laakiin dowladda iyada nafteeda way u gurmatay waxaa la sameeyay waxay ku soo aadaneed supplementary budgetkii sanadkii aan soo dhaafnay ay ku soo aaday xilligii uu dilaacay Rift Valley fever-ga waxaana wasaaradda caafimaadka loo qoondeeyay lacag gaaraysa 20 milyan oo laga soo qaaday wasaaradda trade laga soo qaaday si ay ku meel mariso waxyaabaha emergency-ga oo noocaasayta oo kale hay-adaha aan dowliga ahayn sida World Vision iyo Save the Children iyo kuwa caafimaadka iyagana u xilsaaran gurmad degdeg ah ay sameeyeen dowladda xilligaasayta waxa ay sameysay in ay tallaal u sameyso xoolaha khaas ahaan kuwa loo malaynayo in cudurradaasayta ay saameeyeen waxaa la sameeyay survey ayaa la sameeyay taasi oo baaritaan lagu sameynayo goobaha cudurku lagu helay ma ahayna goobo kale ee aan la ogeyn inay jiraan taasina waxa ay ka dhacday qayb dowladda ay xulatay wardkaygana waxa uu ka mid ahaa meelaha lagu sameeyay surveyda lagu sameeyay cudurka Rift Valley fever-ga si degdeg ah ayaa lagu joojiyay haddana intaan ognahay saameyntiisa way dhamaatay saameynta markay dhamaatay kadib ay dowladdana ay ogolaatay in bandowga laga qaada cunitaanka hilibka iyo caanaha xoolaha haddii aan usoo laabto dhanka maxkamadaha iyo saameynta ay ku yeelatay magaalada Wajeer saameynta maxkamadda ay ku lahayd magaalada Wajeer ma aha mid wada saameysay shaqooyinka ama dhaqdhaqaaqa county-ga waxay saameyn ku yeelatay dhanka horumarka sida la ogyahay budgetka county-ga waxa uu kala qaybsan yahay recurrent iyo development recurrent expenditure waxaa la yiraahdaa waxyaabaha loogu talagalay lacagaha loogu talagalay mushaaraadka shidaalka iyo maxaa la dhahaa sida waxyaabaha emergency-ga wata tracking-ka tii ayada ahayd lacagaheeda way dowladda way soo deynaysay inkastoo mushaaraadka ay soo daahayeen laakiin wixii saameynta weyn ay ku yeelatay waxay ahayd lacagta development-ka amaba horumarka loogu talagalay sida Shucayb uu sheegayna lacag gaaraysa 2 bilyan iyo 700 bilyan ayaa xayirantay dowladda iyadana sidoo kale saameyn waxa ay ka haysatay dhanka shaqsiyada gacanta ku haya wasaaradda iyada oo dhaqaalaha ah waxaan ognahay in isbedelaad fara badan u dhacay laakiin waqtiga aan joogno waxa kale oo aaminsanahay dowladda sare amaba controller of budgetka ee dhaqaalaha county-da loo soo deeyay gacanta ku haya in uu aaminsanaa lacagaha county-ga in lagu isticmaalayo campaign soo socdo ama maxkamadda tii ayadaheedna waxay saameyn ku yeelatay dadweynaha laakiin sida hadda aan ognahay lacagtii 2 bilyan iyo 800 ama 700 milyan ee hadda xayirneed qaybo ayaa la soo deeyay waxaan filaynaa qaybaha kale in la soo deeyo waxa kale xusid mudan in lacagtii ay ka soo baxday bangiga kore inay ka soo baxday laakiin ay ku jirto account oo haddaba laga heli karo waxaan u malaynayaa saameynta hadda dhaqaale la'aanta county-ga ka jirtay inay dhammaan doonto midda kale abaaraha ah wasaaradda biyaha ee county-ga Wajeer maalmihii aan soo dhaafnay waxa ay qoondeysay nidaamka la yiraahdo water tracking oo biyo loogu geynayo goobaha aan biyaha lahayn mashiimaha iyo maxaa la dhahaa meelaha biyaha laga helo inay qalabayso marka lacag gaaraysa 150 milyan oo kale way ku baxday dhankii abaaraha inkastoo lacagtii ayadaheed ay wada kaafinin dhibaatada dhanka biyo la'aanta ee ka jirto marka waxaan aaminsanahay dowladda
dhanka gurmadka degdega ah inay shaqo In weyn wax ay ka badan laga qabatay qabtay. in wax badan ay ka waa tahay qabatay Shucayb waxaa laga soo doortaa diif oo xuduud la leh Soomaaliya isla markaana ay in badan ay hadda ka hor ay ka dhaceen dhibaatooyin la xiriiro weeraro oo macallimiinta oo kale ay ka soo tageen haatanna waxaa sidoo kale Mandera oo kale waa iyadii dhakhaatiirta la afduubay xagga ammaanka oo kale deegaankaasi saameyn meeda ku keentay afduubkii dhakhaatiirta Kuuba laga afduubay Mandera. runtii annaga diif haddaan ka imaanay diif waa xuduudka ayaan la lenahay Soomaaliya. laba safar hore magaalada diif waa lasoo weeraray, shabaabkaa soo weeraray, wax dhimasho ma jirin, laakiin markii uu xumayd dukaamo shacabka ay leeyihiin ayay gubeen, baabuur oo ciidanka leeyihiin way abduweyna la tageen. laakiin hadda alxamdulilah dowladda dhexe aad bay uga qayb qaadatay xagga ammaanka sugidiisa. ciidamo badan oo la dhaho border patrol oo 100 ah ayaa hadda bil aan soo dhaafnay la keenay oo ayada meeshan lagu soo biiriyay in maartaa ammaanka wax ka qabtaan. hadda aan taagannahay waxaa jirta xabsi xaggaas naga hayso leeyahay oona loo jeedo in la burburiyo ama la dumiyo xagga isgaarsiinta birahan dheer Safaricom ay leedahay. dowladuna ay ka warhaysaa tallaabo badan ayaa laga qaaday in maartaa ammaankeeda aad loo sugo. marka xagga ammaanka dhakhaatiirta way noo joogtaa, inkastoo dhakhaatiirta Soomaaliya ay tahay. macallimiinta lafteeda macallimiin badan oo madow naga soo tageen, laakiin dowladda lafteeda waxay samaysay response kale ay samaysay oo macallimiin kale ay noo keentay. laakiin ammaanka waa arrin taagan oo threatkeesa uu real u yahay. laakiin waxaan iska kaashanaa xagga dowladda Jubbaland sidaan wax uga qaban lahayn. markan laakiin arrinka ammaanka waa arrin aad taagan oo u baahan wax laga qabto runtii. waa tahay siyaasiyiin baad tihiin oo xildhibaanaad tihiin sida la ogsoon yahay waxaa haatan dalka ka socdaa huduma number iyo diiwaangelinta. dad badan oo siyaasiyiin aragti kala gedisan ayay ka dhiibteen. wala aan sheekhay ku bilaabe idinku aragtidiina ku aadan. ugu horeyntii aniga shakhsi ahaan ma taageersani mashruuca huduma number-ga ilaa iyo dowladda ay ka hirgelinayso waxyaabo muhiim ah oo aan u baahannahay haddaan nahnay dadka xoolo dhaqatada. waxaa ugu weyn waxaa laga heli karaa gobolka waqooyi bari qof 50 jir ah ilaa iyo haddana aan haysanin kaarka aqoonsiga ee la yiraahdo kibandarka. taasi waxa ay sababaysaa dadkaasaytu inay heli waayaan warqadda dhalashada ama hataa caruurtooda ay heli waayaan warqadda dhalashada. waxaa aad u fara badan dad dhalinyaro ah oo kibandar goostay ama kaarka aqoonsiga, laakiin waxa ay ku goosteen adeerkood ama walaalkood ama walaashood waalid ahaan ay ku goosteen maadaama waalidkooda aysan haysanin kaarka aqoonsiga ah. sidaan ognahay dowladda mar ayaa jirta ay jirto kaarka aqoonsiga, laakiin haddana waqti oo dadka ku filan oo ku imaadaan oo qofkii kibandar la'aan ah ama kaarka aqoonsiga aan haysanin uu ku helo lama siiyo. waxay imaanaan hal maalin ama 2 maalin ay imaanayaan. marka aniga shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay iyadoo ay yar tahay iyadoo ay jiraan dad aan haysanin kaarka aqoonsiga ee muhiimka ahaa haddana in mashruuc kale la keeno aniga waa ila qaldan tahay. waa in ugu horeyntii la saxo qaladka ah in ay jiraan dad aan haysanin kaarka aqoonsiga. midda labaad kaarka huduma number-ga ah waxyaabo fara badan ayaa ku xiran. sida noola sheegay dowladda khayraadka ay qaybinayso waxa uu ku salaysnaani doonaa kaarka huduma center-ga. mashruucyada muhiimka ah sida kaarka aqoonsiga iyo baasaboorka iyo wax kastoo adiga aad u baahan tahay waxaa lagu xiri doonaa kaarka huduma number-ga ayaa lagu xiri doonaa, iyadoo ay aan ognahay dadka xoolo dhaqatada hataa in aysan usoo bixaynin codbixinta oo ay u arkaan inay muhiim tahay. haddana lama wada gaari doono dadka xoolo dhaqatada ah oo lala doonayo inay helaan kaarka huduma number. markii ay yaraato dadka huduma number-ka haysta markay yaraato dhaqaalaheennana uu ku salaysan yahay inta haysato, waxaan aaminsanahay tira ahaan inaan hataa ka yaraani doono goobaha kale ee iyaga horumaray oo dadkooda la heli karo oo duurasha aan ku jirin. marka waxaad isleedahay gobolka waqooyi bari guud ahaan ama deegaanada Soomaalida ay degto maadaama ay xoolo dhaqato yihiin muhiimadda koowaad waxay ahayd in la siiyo sidii ay ku heli lahaayeen sharciga aqoonsiga. sax waa tahay
شعيب sidoo waxaa kaloo aan ku dari lahaa inta aad Shucayb u gudbin haddii dawladda ay sameynayso waxa la yiraahdo emergency program oo ay sameynayso oo ay xoolo dhaqatada ay la dhax soconayso kaarka aqoonsiga iyo mashruuciisa haddii ay xoolo dhaqatada la dhax soconayso oo la leeyahay maanta qoys hebel xoolihii dhankay u soofsadeen meesha ay u soofsadeen ninka xoolaha jira haddii aan la korgeynaynin mashruuc kaarka aqoonsiga waxaan u maleynayaa tirada la rabay dadka xoolo dhaqatada inaan la gaari doonin waata shacab sidoo kale bal ku dar aragtidaada aragtidayda markay tahay huduma number waa exercise oo national government ka imaaday wadanka dhan ay qayb galaya anaga haddaan nahay north eastern Wajir county dhaartii la launch gareynayo ilaahay lagu launch gareynayo waa qayb galay laakiin dad fiiriso dadka ka soo qayb galay isii markay ay ahayd nidaamka loo sameeyay afteeda waan ka jeedinay meesha ayada oo waan u sheegnay dawladda markay ayada in martaa programka meesha uu inay Wajir xadeed ahayd oo lagu sameeyay launching dadka ka imaaday inay yaraayeen welito marka taas waxay saameyn ku lahayn doontaa tirada la rajaynayo in laga soo diiwaangeliyo soo baxay diiwaangelinta haddii meesha Wajir saa u yaraatay waxa ma ismarkan tuulooyinka iyo maanta abaaraha taagan midda kale caqabada taagan oo aniga dhaarta ayada meesha ka sheegay waxay ahayd anaga Wajir South wadan ka imaanay waxaa jira dad badan oo anaga oo faraha qaxootiga ku jiraan abaarihii berigii 1992 dhaceen dadka anaga badan waxay galeen qaxootiga ayuu Kenyaan dadkii ayaga markan farahooda waxay ku jiraan qaxootinimo hadda markan huduma number ma keenan imaatay waxa leeyahay dadka qaar waxa loo register gareyn doona aliens in qaarna Kenyan ayin marka dadka Kenyaanka ahaayeen oo farahooda qaxootiga ku jiraan maanta alien ahaan loo register gareey waxay noqonaysaa dib kale midda abaaraha wada sheekhay uu sheegay dadka ayaga badi maadaama xuduudka ay degnaayeen abaarihiina ay saameyn weyn ku yeelatay roobihii ka dhaceen dhinaca shishe dadka xoolo dhaqatada way u guureen waqtiga la qabtana waa 45 days la yiri 18 bisha shanaad oo soo afjarmaya waata markan dadkiina way maqan yihiin markan dadka ayaga goorma la diiwaangelin doona ayadana waa arrin taagan waata midda kale Soomaalidu waa ta guurguurtay ma laga yaabaa in dad badan oo Kenyaan ay xuduudaha ka talaabeen oo aysan fursad u helin waa dhigta taas wato aan sheegnay hadda ay taagan tahay dadku way maqan yihiin ma joogaan xuduudada ay ku talaabsadeen xoolihii la aadeen biyeel raaseen roob ay raadsadeen waata doorashada 2022 ee dalka ka dhici doonto kale dadka qaar ayaa waxay leeyihiin huduma numberkan waxa wata madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo Jubilee idinku xisbigiina wuxuu gacan saar leeyahay ama uu ka mid yahay Jubilee ma jira ajenda u gooniya oo la isdhihi karo hawshan waxa wata Jubilee iyo xisbiyada gacan saar kala leh horta intan 2022 doorashada la gaarin waxaan ugu soo aadan bishii diidaad census tirakoobkii wadanka la sameeyay hadaad fiiriso huduma number sida dadka oo jisagareynayso ee census soo socdo ta ayada waxaan dhihi karnaa horta xoogaa xiriir ayaa ka jira meesha interrelation jira xisaabta anaga aan 2009 aan soo gudbin anaga aan misanay weli yar tahay ayaa ilaa maanta maxkamadda waxa taagan in martay Soomaalida ay soo gudbisay number aad u weyn hadda markan huduma numberka laga soo qaadan doono xisaabta ka imaan doonto ee xisaabta census ka imaan doonto waa laba xisaab oo aan iswaafaqi doonin anaga dareemeyn maxaa yeelay dadka hadda oo maqan oo hadda la register gareyn huduma hadhow hadii waxa lagu saleyn doonaa census-ka huduma xisaabta ka imaato aad baa martay ay noo noqon doontaa wax tiriibray Soomaaliya kuma doontaa taasoo martay saameyn ku yeelan doonta dhow dambe resource-ka iyo numberka aan ka ahayn wadanka waxaan u maleynayaa arrinkan wax badan oo martay mugud ku jiro ayaa ka jira huduma number oo weli dawladda ay si fiican u soo cadeynin midda kale sharcigan sidii loo martay loo soo dedejiyay ee halka wadanka maanta ka taagan waxaa tusaysaa xoogaa in shaki badan uu ku jiro maxaa yeelay 6 bilood gudahood wasiirka arrin ku dhawaaqay wala baarlamaanka waxa la maray cabinetkii markii wal roll out gareey kharash lagu bixiyay 4 billion shillings gaarayso markan wixii loo dedejiyay wixii martay harakadan loo keenay xoogaa shaki badan iyo dhaliil badan u dhalisanayo waatahay maxamed tantira koobka oo kale Soomaalida inkastoo reer guuraata haddana marka tirakoobka
la sameeyo 10 sanaba hal mar aad bay Soomaalidu soo kordhaan oo waa iyadii deegaano badan la kansalay tirakoobkii hore lagu sameeyay dalka ma isleedahay Soomaalidu qowmiyadaha qaar oo haatan marka la fiiriyo oo qaybsiga dalka xubnaha weyn ka qaata ay ka badan yihiin balse waxaa jirta in la gacan bidixeeyo oo markastaba xagga tirada lagala dagaalamo ugu horeyntii gobolka waqooyi bari gacan bidixeyntii lagu hayay waxay yaraatay waqtigii dowlad goboleednimada la ogolaaday ama devolutionka ma jirin waqti hal magaalo oo gobolka waqooyi bari ku jirta loo qoondeeyo lacag gaaraysa 9 bilyan ama 8 bilyan hal sano gudihii devolutionka ama dowlad goboleedka markuu imaaday waxaa ku soo kordhamay gobolka waqooyi bari shaqaale gaaraya ilaa iyo 12,000 amaba kasii badan ayaa ku soo kordhay sidaad ogtahay magaalada Mandera waxay heshaa 9 bilyan Wajeer waxay heshaa 9 bilyan ama 8 iyo dhowr ayay heshaa Garisana sida oo kale magaalooyinka kale ee wadankani Kenya oo iyaga isu haysta in kheyraadka iyaga ku imaada cabasho ay ka soo jeediyeen arintaas iyagoo aaminsan in gobolka waqooyi bari kheyraadna uu ka jirin xoolaha ka imaadana aysan ahayn kuwa macno weyn si leh marka gacan bidixeyntii lagama soo noqon karo devolutionka lagama soo noqon karo in lagu sameeyo dastuurka in lagu sameeyo amendment oo lagama soo noqon karo ani marka tan waxay ila tahay dadka wadanka nala degan laakiin u maleynahay kheyraadkooda in anaga noola keenayo ayaa waxa ay isku dayayaan in dawladda ay ka dhaadhiciyaan gobolka waqooyi bari tiradanayta oo dadka ay soo bandhigeen ma qabaan inay ka dhaadhicinayaan si noolaga yareeyo kheyraadkii anaga noolagu talagalay waxa kale oo jirta sanadka 2009 censuskii aniga waxaan ku jiray dadka clerks oo tirakoobka sameynayay marka aydaheed waxa la sameynayay qaybta manualka amaba bug iyo qalin ay ahayd markii magaalada aan ka baxno waxaan aadaynay doorasho aan aadaynay goobta xoolo dhaqatada ay joogaan meesha ay joogaan aan ugu tagaynay si aanan u dhaafin hal shakhsi oo Soomaali oo meeshaas ay degan oo la tirikoobi kara si aan ugu tagin laakiin haddii la yiraahdo biometrica amaba qalabka electroniga la isticmaala haddii la yiraahdo ugu horeyntii dadka jooga ayaa la tirikoobaya markii la tirikoobana dadkii aan joogin meesha way ka maqnaanayaan maxaa yeelay si manual oo lagu soo gelin karo ma jirto waxa loo baahnaan karaa facial recognition wajigaada oo loo baahdo amaba maxaa la faraha oo loo baahdo tii ayada heedna ma fara sameeyni kartid marka waxaan u maleynayaa tirakoobka soo socdo iyo biometric registration ka soo socdo inuu aad u yareyni doono tirada maxamed waqtiga ayaan hayaa Shucayb hadaad soo koobto hadalkaada ugu dambeeya ee u jeedinayso deegaanka laga soo doortay iyo waliba madaxda dalka Kenya ku aadan arrimaha huduma santa iyo wixii kala baaqad ku dareyso anaga diif huduma number waa la geeyay dadkina aad baa loo diiwaangelinayaa laakiin waxaan dhihi lahaa soo baxaan ha imaadaan nambarka ha qaataan midda kale anaga maanta abaar baa maartay soo saaran waxaan ka codsan lahaa dowladda tan countiga iyo tan kale oo national lafteeda inay isu tagaan dadka ayada si loo badbaadin lahaa xoolaha loo badbaadin lahaa in maartay waxba in laga qabto ugu dambeystii sidoo kale aniga waxaan ka codsan lahaa Soomaalida iyo goobta laga soo doortay in huduma center ay qaataan nambarka ay qaataan maxaa yeelay hatta haddii ay diidaan arrin joogsanayso ma aha laakiin rajo weyn kama qabno in arrintan cusuban ay dawladda ay soo bandhigtay inay noqon doonto mid oo saameyn fiican ku yeelanayso Soomaalida waxa kale oo jirta countiga Wajeer dawladda hadda xilka haysa inay shaqo weyn ka qabatay laakiin uma muuqato tii ayadeed ma muuqato maxaa yeelay saxaafadda waxa in badan ay xoog saartaa maxkamadda iyo wax qabad la'aan ay xoog saartaa waxaan ognahay dawlad goboleedka inay isticmaashay lacag gaaraysa 750 milyan oo loogu talagalay mashruuca ward based project wardka aniga aan ka imaaday oo kaliya waxa laga hirgeliyay 10 mashruuc ayaa laga hirgeliyay isbitaal ayaa la dayactiray iskuul ayaa la dhisay oo ECD classes waxa kale oo la sameeyay jidad ayaa la sameeyay waxa dawladdu wax badan ay qabatay leedahay wax badan ay qabatay laakiin ma muuqato
waxaana ka codsanaynaa dowladda qaybteeda isgaarsiinta ama communicationka ama PR-ka PR xogo af Soomaali wax lagu dhaha ma garanayo in ay dowladda wixii qabatay dadweynaha ay soo bandhigto dadka dowladda aan taageersaneen aan laga sugin dowladda information inay bixiso ayaa la rabaa laakiin hadda waxaa u muuqata informationku inuu ka imaanayo dhinaca kale inuu ka imaanayo aad iyo aad u mahadsan tahay waqtiga ayaa nahaya aad iyo aad u mahadsan tihiin sida wanaagsan ee barnaamijka shukran qayb qaateen ma sha Allah daawadayaal intaas ayaynu ku soo afeeynaa wareysi gaar ah oo la yeelanay xildhibaanada aqalka hoose ee ismaamulka Wajeer Maxamed Axmed oo lagu magacaabo Sheekhay iyo waliba Shucayb Barre ayaga oo waliba laga soo kala dooro deegaanada Ceelbeen iyo waliba Diif tan iyo intaan ku kulmayno wareysi noocan kala sidaas iyo nabadgelyo